waan ku faraxsanahay in markii labaad uu ka qabsoomayo magaalada Jigjiga caasimadda dowladda Soomaalida shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Shirweynuhu wuxuu kaga duwan yahay kii hore, waxa imanaya dad xirfadihii iyo hibadii ay lahaayeen ku shaqeeyay dabadeetana guulo waaweyn ka soo hooyay oo nooc walba leh. marka waxyaalaha ugu waaweyn isla yahay dhalinyarada deegaanku way ka faa'iideyaan waxa kow ka ah in horta ay bartaan xirfadda iyo hibada uu isagu tuhmaya ama tabaya inay gudihiisa ku jirto in uu ka heli karayo madashaas. sidoo kale network in dad waaweyn oo ganacsato ah oo xirfado kala duwan guulo ka gaadhay aad baratid. tasaddexaad ugu muhiimsan iyaduna waxa weeyaan inaan dadkan khibradooda qaadano. يعني ninka maanta dadka imanaya martida ah waxa kamid ah mid meel hoose ka bilaabay laakiin maanta milyaneer ah. marka waxaan leeyahay idinkuna dhiiri gelinaya hadii aad karaysid inaad xataa deegaanka qaybihiisa kala duwan aad ka timaadid ama aad ka timaadid maxaan radaa dalka oo dhan iyo dibadaba inaad ka timaadid aad karaysid oo ka soo qayb gashid shirkaas saddexda cisho soconaya waan ku soo dhaweyneynaa. waxaan leenahay dhalinyarada saddexda cisho ka faa'iideysato fursadahaas uu inoo abuurayo shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed.